haatanna ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegayno Malla Zanaawi iyo maamulkiisa dhagaraysan waxaana inoo haya wari Cabdiraxmaan Sheekh Faarax sida laga wada warqabo wali dunida kama soo dhicin kalitalisi si nabada ku xalliya colaadaha dhexdiisa ka jira iyo sidoo kale inuu nabad la qaato jabhadaha gobonimo doonka ee isaga gumaysigiisa ka soo horjeeda waastaamo talisyada caynkana lagu yaqaano inay xasuuqaan oo ay shirqoolo iyo dhagar u dhigaan xooga xurriyadoonka ee ka soo horjeeda iyagoo mar walba taba cusub la imaanaya tusaale ahaan xilligii dagaalkii qabooba oo ku aadanayid markii ay saraakiishii dhargeedu inqilaabeen boqorkii Hayle Salaasi ahaydna markii ay Itoobiya dagaal sokeeyo ugu dhaweyd markaasi oo gudaha Addis Ababa uu dhiigu wadooyinka qubanayay kadib markii 10,000 oo Itoobiyana oo ka koobnaa dawladii boqorka saraakiishii ciidamada iyo shacbigii dalka degana dhagta dhiiga loo daray isla markaasina ay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed dhaqaaqa xoogan ogaadeen ka waday hase ahaatee Abasiiniyiinta waxaanan xabad ahayn dhuuntooda kama dhaadhacdo arrintaasi ayaa waxaa ka dhashay in ay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed oo halgamaysay xoreynta ama gobonimo doonka ogaadeenaya ay xoog kula wareegto dhulka ogaadeenaya haddaba kaligii taliye Malla Zanaawi oo tan iyo sanadii 1991 dalka Itoobiya xoog ku soo maamulayay ayaa wuxuu markii ugu horeysay khiyaamay axdigii ku meel gaarka ahaa ay dadka reer Itoobiya dhigteen kadib markii la isugu yimid nidaamkii ku meel gaarka ahaa haddaba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo ka duulaysa rabitaankii shacbiga ogaadeenaya ayaa waxay qalqaalo u gashay inuu dadka ogaadeenaya xaqiisa ay ka tashiga uu helo waxuna baarlamaankii xilligaasi bishii Abriil sanadii 1994 cod aqlabiyada ku ansixiyay in dadka ogaadeenaya afti laga qaado inkastoo dabeecadaha Abasiiniga la yaqiinay haddana waxay ahayd tilaabo siyaasadeed oo ifaalo wanaagsan muujinaysa jawaabtii Zanaawi waxay noqotay inuu xoog ku qaado dalabkii dimuqraadiyadeed ee dadka ogaadeenaya ka soo fulay isagoo markaasi ugaarsiga ilaa iyo maanta too soconaya ku bilaabay shacbigii nabadda jeclaa ogaadeenaya dawladii xilligaasi dhisteena kala fiijiyay haddaba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo iyadu ahayd maskaxdii dadka hogaaminaysay waxa ay iska diiday inay isdhiibto oo marnaba aanay mabaadi'da gobonimo doonka ee shacbiga ogaadeenaya aanay ka leexan karaynin wadatashi dheer oo ay jabhaddu gashay kadib waxaa sanadii 1994 la bilaabay dagaalkan hubaysan ee 17 sano soo jiray haddaba ku dhawaad 20 sano ee dagaalka hubaysan ogaadeenaya ka soconayay imise jeer ayuu Zanaawi dadka ogaadeenaya u dhowl cadeeyay isaga oo dhagarihiisina gows dambeedka ku qaniinsan sanadii 1995 waxa uu ku baaqay inuu jabhadda wada hadal la galayo waxaana ashir la isugu yimid magaalada Qabri Dahare oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada wayaanuhu ogaadeenaya ku leeyihiin iyadoo markaasi jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya baahida nabadda loo qabo darteed ogolaatay in xiriyihii askarta Itoobiya kulan caynkaasi ah lagula qaato cadawgii ummadda ogaadeenaya gumaysanayay sidoo kalena 1998 waxa ay mar labaad jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya indhaha ay soo ugu qabatay in gumaysiga wada xaajood ay kula yeelato gudaha ogaadeenaya hase yeeshee khiyaamadii ay wayaanuhu sameeyeen waxay galaafatay noloshii madax badan oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ka tirsanay kaligii taliye Zanaawi kama uusan daalini inuu dhagaraha noocaasi ah ku sameeyo dadka ogaadeenaya waxayna xigtay oo damcay inuu iska horkeeno jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo duqeyda dalka oo ay ugu dambeysay 2005 markii uu qaar kamida dibadda u diray hase ahaatee shirqooladaas jabhaddu waa ay ka talaabsatay halgankii gobonimo doona hakad maanu gelin kaligii taliye Malla Zanaawi waxa uu ku mashquulsan yahay inuu abuuro kooxo iyo waxyaabo uu magacyo kala duwan ugu yeero kuwaasi oo kolba uu mid u gacan haadiyo si uu indhaha caalamka isaga jeediyo isla markaasina uu dadka ogaadeenaya khaaxuul u galiyo kaligii taliye Zanaawi kulankii ugu dambeeyay oo saxaafadda u qabtay waxa uu ku sheegay inuu dhawaanto jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya heshiis la gaari doono haddaba waxa is weydiin leh muxuu oo la jeeda
maska xanuunkii iyo ceebihii ka soo gaaray markii uu hadhcad tunka saartay sanaadiiqdii ay dadka reer Itoobiya codkooda ku dhiibteen ayaa waxa ay ka yeersiisay ereyo badan oo riyo maalmeed ah kuwaasi oo dunida ugu muujinayo inuu nabadda ogol yahay waxa uu sheegay in Itoobiya dagaal ka soo daashay halka aanu hadda ka hor qiran jirin in Itoobiya uu dagaal ka jiro waxa kale uu rabaa in uu khalkhal galiyo shacbiga xorriyadoonka Ogaadeniya iyo sidoo kale inuu isku dayo in uu dadka Ogaadeniya ka dhex sameeyo kooxo kala duwan misana uu yiraahdo yaan la heshiiya waa tab kamida xeeladaha uu gumaysigu adeegsado marka laga tabarroonaado jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo arrintaasi ka hadashay waxay ku tilmaantay mid uu ku beer la xawsanayo shirkadaha shidaalka iyo sidoo kale inuu mugdi ku gelinayo gabood fallada uu Ogaadeniya ka geysanayo waxayna jabhaddu si adag u naqdiday hadalka uu Zanaawi ku sheegay inuu la heshiinayo oo ay ku tilmaantay waxaanan horay u dhicin haddana aanu waxba ka jirin waxa kale oo jabhaddu cadaysay inay mar walba ogoshahay in xalka Ogaadeniya si nabada lagu gaaro haddii dariiqa caalamiga ah la marayo ugu dambeyntii Malla Zanaawi waa kuma Zanaawi waxa ku dhashay magaalada yar ee Adwa ee gobolka Tigray ku taala sanadii 1955 waxa uu isagoo jaamacadda Addis Ababa sanadii ugu horeysay dhiganaya kulliyadda caafimaadka oo ku biiray jabhaddii xoreynta Tigray oo ah tan maanta dalka Ogaadeniya xasuuqa ka wada waxa hogaaminteeda ku biiray wax yar oo ka hor markii uu ururka ku soo biiray isagoo heerkan ku soo gaaray afmishaarnimo iyo qiyaamo uu jabhaddii ka dhex sameeyay waxa TPLF iyo EPRDF ta oo hadda ku adeegto gudoomiye u noqday sanadii 1989 markii taliskii dargida xukunka laga sii tuurayay kadibna waxa uu noqday madaxweynihii Itoobiya iyo gudoomiyihii golaha baarlamaankii ku meel gaarka ahaa iyo sidoo kale madaxii TPLF iyo EPRDF wixii intaasi ka dambeeyayna waxa uu ku sii fogaaday khaa'inimo iyo gacan ku dhiilnimada ilaa iyo maantayto ugu amar ku taagleynayo shucuubta ku hoos dulman ee Itoobiya ku dhaqan isagoo oo welina talidii xoog ku sii haysta oo ay ugu dambeysay markii uu doorasho ku sheegtay 23kii bishii May ay naga tagtay 99% uu tunka u dhigtay inta ayna hawada isku macsalaamin war hadana soo gaaray ayaa waxa uu sheegaya xukuumadda gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada ka jooga Ogaadeniya ayaa mar kale sii adkeeyay cunaqabatayntii ay ku hayeen shacabka Ogaadeniya sida wariyaha raadiyo xurriyo uga soo warramay Ogaadeniya noo sheegay waxa hal mar cirka isku shareeray maciishadii daruuriga ahayd taas oo ka timid kadib markii ciidamada wayaanuhu ay is hortaageen dhammaan ganacsigii Ogaadeniya ay la lahayd dawladaha dariska la ah meelaha qaar kood sida magaalada Qabridahar oo kale ayaa noo sheegay in loorka sonkorta uu marayo 1500 oo bir oo u dhiganta $150 wax ka badan horta waxa weeyaan adeer oo horta waa firi oo kale oo dadkana horta waxba u gaban mahayaan dadka Ilaahay weyn waa xisaabta waana dad multileena shaqadooda iyo halgeedkooda iyo wax qabashadooda iyo iimaankooda tamam ku ah daraato u dambeysay oo hadii u dambeysay baabuurtii ay ka hargeysay intii laga soo raray oo 6 baabuur horta Itoobiya kala wareegtay marka adiraysan cunaqabataynta tuu dadku aan u dhimanayaan oo waxay waa dad multileena koodina way iska qoteen faafaynta warkana waxaad ku maqli doontaan hadii Allah awood liyo ogolaado idaacada ay nagu soo foolle ka dhagaysa raadiyo xurriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay baalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xurriyo codka shacabka ogaad